dabcan waayahan saaxadda siyaasadda waxaan oran karnaa hadalladaadii iyo doodahaagii way ku yaraayeen waxaa timid muqdisho oo shirar siyaasadeed ay ka bilowdaan maanta waxaa loo fadhiyaa shirkii u dhaxeeya golaha mustaqbalka iyo dawladda horta shirarkan maxaa laga filan karaa oo natiijo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah soo faysana waa mahadsantahay tv-ga shabeellana waa u mahadcelinayaa meesha quruxda badan aad samaysateena waxaan idin leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay ramadaan kariim ilaahay acmaasha hanaga aqbalo wadankana allah noo badbaadiyo abaaraha iyo dhibaatada wadanka ka jirta ummadda Soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa raxmad khayr qabta iyo barwaaqo iyo baraaran u rajaynayaa markaan u gudbo su'aashaada ah shirka maxaa laga rajaynayaa shirka dabcan gogashiisa waxaa dhigay xukuumadda oo ugu horeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud muddo badan ay jitamaysay inay fashilanto ayaa lagu dadaalay ayagii dhigay gogasha ayaa waxay ku dadaalayeen inay haddana fashiliyaan waa dad afkooda iyo dhegahooda iyo gacmahooda aysan ismaqlin iyo qalbigooda intaba uusan isla soconin wuxuu haddaana daacad laga ahayn waddo kastoo lagu fashilin karaa laga shaqaynaya shirkan markii gogashiisa la dhigay golaha mustaqbalka way ajiibeen si niyad wanaag ah ayay u ajiibeen inay ka qayb galaan si loo badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed uusan u dhicin firaaq dastuuri wadanka uusan u galin waxaad ogtahay in ilaaladii la socotay labada madaxweyne Jubbaland iyo Puntland in hawada laga celiyay ayadoo la doonayay in la arqaladeeyo si uusan shirka u dhicin dhag jalaq looma siinin nimanka odayaasha ay way yimaadeen waxaad ogtahay dadkii martida ahaa oo soo booqanayay ama madaxweyne hore ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado ama ra'iisul wasaare ha ahaade in isbaara ama checkpoint loo dhigtay xaruntii ay deganayeen qashqashaad iyo ma garanaysaa daadaansi iyo sidoo shirku ku fashilmi lahaa laakiin waxa ay tooganayaan oo ay qashqashaadayaan oo ay dilayaan waa kursigooda Axmed iyo Deni ma aha shacabka Soomaaliyeedna ma aha waxa ay dabka ku shidayaan oo ay jallaafaynayaan oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa ay ugu horeyso waxa waay horta mandate-kooda 15 May ku egya wax badanna waa sheegnay haddii 15 May la gaaro horta madaxweynihii hore uu noqonayaa cid kale ka dhageysanaysaa ma jirto haddii oday reereed uu noqonaya ee nabadoon reereed uu noqonaya ama horjoogo reereed uu noqonaya waa u furan tahay reerka sababta horjoogu leeyahay ma garanaysaa laakiin karaamada iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed maanta ay ugu yeerayaan la leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa dhamaanaysa marka waxaan leeyahay madaxweynuhu iyo xukuumadda intaba madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waxaan leeyahay kursigiina waxa dabka ku shidaysaan oo jallaafaynaysan oo lugoynaysaan oo isbaarada u dhiganaysaan waqtiga ka faa'iideysta arinta mandate-ka dabcan waad ku celcelisay dhowr mar in 15 May ay ku eg tahay madaxweynaha dawladda iyo madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka dhowr mar waxa uu sheegay in qodob dastuurka kamid ah lagu daray oo 5 sano ay tahay 1 sano lagu daray oo 1 sano oo kale ay dabcan dawladdu u xisaabsantay marka sidee aadan madoobe cid wax ka dhageysanaysaa ma jirto waa nin iska hadlay waa nin waaqac aan la soconin waa nin damiir aan lahayn waa nin bil Ramadaan 30 qofood sheer garaynaya waad arkaysaa dastuurkii Soomaaliyeed waxa ka hadlaya maalin kasta 4 qof baarlamaanka Soomaaliya waa 329 xildhibaan hata golaha aqalka sare marka lagu daro maalin kasta dastuurkaas waxa ka hadlo u fiirso 4 qof ka hadlayso oo isku bedelaysa mahdi guuleed hebel maalin kasta ayaga soo taagan war 300 xildhibaan xagee aad marka dad uu damiirka ka dhintay dadka Soomaaliyeed taladooda cidna uma dhiibanayso iska hadli kara qofka ilaa waa qof nool oo bini aadan waa hadli kara mandate-ka dawladda ama contractiga ummadda Soomaaliyeed xukuumaddan ama dawladdan anagu aan kamid ka ahayna la sii 4 sano waa cidii ay daax ka saaran tahay waxaan rabaa inay indhaha furaan dhagaha furaan wixii ay ku dhaarteen ee xilliga contractiga la siinay ay dib u xasuustaan ay garanaysaa marka nin iska hadlay aniga warkiis danka ma lihi laakiin mid aan ku sheegay waxa aan maanta aan rabaa inaan ku cadeeyo talada waa maalin ay kula simantay iyo maalin aadan gaari karin xasan maanta ay la simantahay laakiin biri ma gaari doono asaga wuxuu dhihi jiray Kampala ha ka doonin laakiin anagu Kampala aadayna ama Kismaayo aadayna ama Garowe aadayna ama Xamaran joogayna haddii shirkan uu fashilmana parallel process dhalan doono xasan sheekhna tala kuma yeelan doono wadankan war madaxweynuhu maanta villadii lagu la joogaa waa adiga diiday ma garanaysaa isha garoonka in lagu shiro xal lagu gaaro lagu soo safray halka Soomaaliyeed ninkii mucaaradka ah ayaa doonaya dhahaya war xal aan gaarin ma garanaysaa ninkii guriga muraayad ah ku jirayna wuxuu leeyahay meesha tan quruxda badan aan dhistay meelaan ugu socdaa ma jirto wallahi inuu ka baxayo ana hubo
maalin aan taladiisa la dhageysan doonina soo dhow laakiin aniga talada aan u soo jeedina waxa waay war maanta waa sharfan tahay waad karaamaysan tahay ummadda Soomaaliyeed ku boqortay ma garanaysaa boqortooyo reereed kuma joogtid meesha boqortooyo Soomaaliyeed ku joogta madaxweynaha jamhuuriyadda ta laakiin 16 May markii la gaaro Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Sheekh Shariif Axmed baad noqonaysaan wax firqi idin dhaxayn doon ma jiraan marka fursadda ka faa'iideysan lahayd shirkan marka ifafaalaha adiga iyo wararka aad ka haysid xogta ma inuu fashilmayo u egtaa marka wuxuu markay niyad wanaag ku bilowdaan sideedaba niyad wanaag marka waxay ku bilowdaan waxa laga fili karaa rajo fiican raxmadda Ilaahay lagama quusto annaga waxaan ka rajaynaynaa Ilaahay qalbiga qofka waa soo jilcin karaa Ilaahay qalbigiisa qofka waa bedeli karaa laakiin qaabku shirka ku furmay hab dhaqanka ma garanaysa ii sheeg xukuumadii shirka dhigtay madaxweynaha ugu horeeyo hab dhaqanka ay u dhaqmayaan wax ay ka shaqeynayaan institutionka la baabi'inayo ee heshiiska lagu ahaa markaad fiirisid aniga rajo fiican oo iiga muuqata ma jirto laakiin mucaaradka marna qasaara ma qabaan waajibkii ay lahaayeen ay guteen cidda marka waqtigu uu ku socda oo loo habeena tirinaya ee bilatiris inta soo dhamaaday sanooyinkii la tirinayay soo dhamaatay ee loo maalmo tirinaya waa xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyay marka aniga wax weyn oo ka filaya ma jiraan laakiin Soomaaliya marxaladda midda maanta ay joogto mid ka xun waa la soo maray dalkana waa la badbaadinaya insha Allah ta'ala ayagana gacmaha laga qabanaya waxay ku ordayaan ama ay ku bootaynayaan ama ummadda Soomaaliyeed ay ku dhibaataynayaan waa contractiga la siiyo oo aan wali ka dhamaanin waa ma fahmaysaa marka aniga haddii sida hadda ay wax u socdaan oo ma garanaysa ay sheeg ay u maamulayaan Xasan iyo tiimkiisa ay wax u maamulayaan team inuusan lahayn anigu aaminsanahay Xasan Sheekh Maxamuud wax u maamulayo waxaan isleeyahay shirka inuu najax ma rabo xildhibaani dabcan baarlamaanka sida hadda muuqato uu qaybsan yahay qayb kamid ah banaanka ay taagan tahay golaha xorta ay la baxeen qayb kamid ah doodii dastuurka bay wadaan marka aad fiirisid yani kala jabka baarlamaanka iyo dabcan doodaha socda sideeba dastuurka dawladdu ay ka shaqeynayso loogu kalsoonaan karaa ama dastuur rasmi u noqon karaa xildhibaano waa dhaweed waxaan u jeeday dhahaya xildhibaanada banaanka taagan ee xorta ah waxay u shaqeynayaan maamul goboleedyo ama madaxweynayaal isteediyay u shaqeynayaan oo waa la soo diray ayaan dhageysanay waxaad ogtahay mandate-ka xildhibaanada sideedaba heer hoosaadka dastuurka xildhibaanada waxa ku qoran baarlamaanka 4 bilood inuu shaqeeyo 2 bilood fasaxana uu galo 4 bilood oo baarlamaanka shaqadiisa ahayd waa gutay bil ramadaanna waa la gaaray horta xildhibaanada dhahaya ee saaxiibaday ah kuwa banaanka jooga xor ma ah horta ayagaanan xor ahayn sababtoo Soomaalidu waxay tiraadaan nin karigii hadlay iyo nin dhul toogtay midba ma gafaan war ninka 4 bilood waa dhamaysanay aan cibaadaysana dhahaya miya xor ah bas ninka la leeyahay busoolad inta looga hal leeyahay 4 cutub ama 5 cutub ee dhamaystir bil ramadaan ma aadi kartid ma cibaadaysan kartid ana adin shaqeynaysa aw baarmaan weyni xagu ka bax afartaas gudoomiye ee qawleysatada ah maafiyada ah ee ummadda Soomaaliyeed dhulkii laga barakiciyo shalay ugu dambeysay dhiib ku daadanay aad u jeeday la siinay waayo waxaan waxa ka shaqeynaa shacabka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay wallahi idin kamana xoog badna waana fuliyiin nin dad dhacayna waa la yaqaanaa mana dhiirana dhulkiina ku dagaalama mujaahidiinati 16 May markii la gaarana dhagxaan ku dila qof kasto dhulkiina qaatay oo danguud aan lagu bixin laakiin shakhsi qaatay la ag fariista wax allaala waxa la ag fariisan kartaa dhulkii dawladdu dabcan ay sida sharciga u bixisay anigu sharci ma aqaan nool oo sawir sida dhul marka la dhiibay process iyo sharciyad loo soo maru leeyahay laakiin dhul iisoo arag iga barakay hebel asaga masaakiin hal iga kiciyo dalkan kuma shaqeyn karo waxaad u jeedaa had dagaalamaan leeyahay dhulkooda ayaga iska leh waxaada waa inaad ku dhimato waa diin waay ma fahmaysaa xoolaha inaad difaactid oo ku dhimatid reerkaada markii la soo gal ama hantidaada la soo weerar ma dhabarka jeedinaysa reer naareeda baa tahay baa dhabarka jeedinaysa waxaada waa u dagaalamay waana ku dhimanay waana ku dan gudmiya lagu bixiyay dawladda iska leh dabcan waa oga laakiin ma maamuli karto dhulka danta guud shacabka kaliya waxa looga qaadi karaa dantii guud oo adeegi guud oo shacabka uu waayay in lagu bixiyo laakiin dhulka qaad soo faysan iisi danayga qabto haday tahay wixii idinka iska lahay ilaashada intaas u balay fariinta ugu dambaysa aad u soo koobay
aniga waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa shirka maanta loo fadhiya waxa waaye dawladda inay ka muujiso xukuumadda uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud niyad wanaag inay ka muujiyaan oo waqtiga aysan iska beerdareynin horta qodobkaas waa u soo jeedinaya waana adkeynaya waxaa soo haray dastuurka beenta ah nimanka guddoonka ah oo iska noqday daydayga magafayaasha meelaha malafsanaya annagu dastuur uma naqaanee waxaan u naqaanaa buug xasuus qor ah oo xasan sheekh maxamuud ay u qorayaan ayaan u arkaynaa may fahmaysaa dastuurka soomaaliya waa kii 2012 la ansixiyey oo ergada soomaaliyeed ay ansixisay oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagu doortay baarlamaanka maanta joogahay lagu doortay soomaalina heshiiska ay ku ahayd keliyana waxaa looga gudbi karaa wax heshiis lagu yahay may fahmaysaa buuggaas marka xasuus qorka oo meesha lagu haayo ummadana yaana lagu fasaahadinin baarlamaanka Soomaaliyeedna eedaas iska malahana nimanka guddoonka sheeganaya ee waqtiga ka dhamaaday ee albaabada uu ka soo xirmay meel ay aadan aysan jirin nolol oo dhan u haysta inay ma taqaana ay sheeg hadda meelaha ka qarqaraabtaan ayaa wade ummadda Soomaaliyeed dastuurkeedana waa kii hore baarlamaanka inta banaanka joogta waaya baarlamaanka sida saxda u matala ummadda Soomaaliyeed taasaan la yaana lagu katoomo dastuur waa kii hore dadka Soomaaliyeed oo dhulalkooda la boobayana waxaan leeyahay maalmo yaroo koobana idin dhiman dhulkiina kaliya inuu idin soo laabto waxay idin dhiman 16 May hadii la gaaro dhulkiina idinka iska leh sharciyada waa ka dhamaatay idinka idin lamid yihiin ku idinka qaatay waxa la idinka rabaa inaad ma taqaana quusanin qaylisaan waran qaadataan dhagax qaadataan fallaara mariid la aad qaadataan tuugada qowleysatada oo dhulkiina boobaya ee gafanayaasha noqday oo maafiyada inaad iska celisaan waxaan ka tacsiyeenayaa shacabkii Soomaaliyeed oo shalay la dhibaatay ayagoo sooman ma garanaysa duruufaha adag ku jira jeengadaha kuleelka ku jira ninka irsaaqada ka raadiyay ilaahay un baadeeqi kara kaas ma fahmaysaa kuwii shalay dhaawacmayna allah caafiyo inta dhimatayna ilaahay naxariista janna ha ka waraabayo xilli fiican ay dhintaan laakiin mas'uuliyadaas adduun iyo aakhiraba xukuumadda xasan sheekh uu hogaamiyaa lagu xisaabtamaya aad iyo aad buu mahadsan yahay xildhibaan maxamed cali cumar caananuug oo iiga waramay xaaladda guud ee wadanka iyo shirka maanta dabcan ka furmay magaalada muqdisho inta aan waraysigan mid lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa daawadayaal iyo dhageystayaal nabadgelyo